أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الله ينسيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. cajaladii koowaad oo ahayd waxaan ka murugoodaa maaragtayto iyo tii labaad oo ahayd markaa saddex daqiiqay noqotay. hadda tan xoogaa ka badan siisay xoogaa taleefonkaata tiray. marka waxaan inii waday arrintii ku saabsanayd macnaha waxaan ka murugoodaa dadka dhibanayaasha, dadka u baahan, dadka barakacayaasha ah oo siiba jooga magaalada muqdisho, caasimadda waddanka soomaaliya. waxaan uga murugoonaya wallahi runtii aadaan uga murugoonaya. marka tan tii saddexaad noqonay biinilaa oo ugu dambeysay maxaa yeelay hadda xoogaa fiicanaan helay 10 daqiiqo laakiin ma duubaa 10 daqiiqo hadday ii gaartan oo kaa. marka sababtaan uga murugoonaya maxay yihiin dadkaas waata hadda inii soo sheegay xadiiskii cajaladii hore. insha allah ma ku noqonayo xadiiskaas ina macnaha inuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yiri axibu alnaasa ila allah, ilaahay dadka ugu jecel yahay anfacahum linnaasi, kuwa dadka anfaca. qofkana waxa waaye marka xadiiska waxa ku jira macnaha maaha inuu qofku kaliya muslim yahay, qof insaanka linnaasi, naasi waa dadka, anfacahu linnaas macnaha hadda ka soo cajalada hadda soo dhigi doona waa arkaysiin qof ka celinaya jidka dhacayo, qof baskiil wato baabuur ku dhac rabay, qof meel ka diro. dadkan waxaad arkaysaa subxaanallah. annaga ma ku dhahayo dadka gaado way naga fiican yihiin, laakiin naxariis ayaa loo baahan yahay. indhaheenna, jirkeenna, qalbigeenna inaan furno. haddaad xataa soomaaliya joogtay muddo badan, dagaalo badan aa aragtay oo aad adkaatay, u nax walaalkaaga muslimka ah. marka waxaan aniga rabaa oo sheekadeeda ugu dambeysay waxay ahayd aniga waxaan ahaan ku ir hooyo runtii anoo dhalinyar waddan qurbaha soo galay. haddii saacadan aan horta runtii dadaali lahaa, ilaahay wuxuu qadaray horta marna ma sheego. waxaan aan lahaa hooyo meel hor kale joogto, laakiin meel kale aan joogay ma laga yaabi lahaa intaan meel kale joogo diinkayga inay dhibaato soo gaari lahayd. ma laga yaabi lahaa inaan noqon lahaa markaas mutabarija. you never know. marka qof kasta wuxuu ku sugan yahay inaan dhahno waa alxamdulilah, alshukr lilah. marka hadda uma u shalaynayo maxaa yeelay alxamdulilah ilmu ilaahay iga siiyey. wadankii intaan kasoo tegay ilaahay inta amaaday. hooyo waxaan ahaa guri joog ayaamihii hore sax Sweden waan baxayay, waxbaan bartay 3 sano ugu horeysay maartayto 3 sano i barkii waxbaan bartay, jikadaan bartay, luqadaan bartay xoogaa fiican. wadankii isdhexgalkii dadkaan bartay Sweden dadkii ugu horeeyaan ahaa aniga 89kii galay. marka weligay taariikhdeeda kama sheeko waxaas dhaha mar walba marka kabacdi laakiin hadda insha allah mar unan bilaabi doonaa taariikhdeeda inaan ka sheekeeyo. hadda waxaan usoo galay muhiimadda waxa waaye in aan maaragtay dadkeena caawino. xadiiskaasna waa noo sheegay aniga laftirkeyga wallahi qalbigeygay taabatay xadiiskan ah anfacahu linnaasi. macnaha dadka yaa ugu fiican, allah ugu jecel yahay. allah wuxuu ugu jecel yahay kuwa anfaca dadka oo habeenii maalin ka fikir walaalahooda. oo marka iyaga cuntay wallahi alcadiim xataa mararka qaarkood cuntaan rabaa inaan soo geliyo, waxbaan rabaa inaan soo anoo shiidana ama wax inaan geliyo. waxaan dhahaa laa xawla walaa quwwata billah. ani jawaabkayga ma soo dhigayo wax anoo shiida anoo kan samayna ma muuqata. aniga u murugoonaya dadkii maartayto oo dhibaataysnaa, dadkii aan awoodin, dadkii aan soo gelin. maxaa yeelay channelkan Hope Family Foundation waa channelka dadka danyarta ah. insha allah wuuna guuleysanayaa markii maartay ilaahay subxaana watacaala uu ugu talagalo. marka waxaan rabay in marka sheekadii ay socotay, marka aniga maadaama aan maartay halkaas Sweden joogay, ana halkaas aan ku guursaday gabar yar aan ku dhalay. odagii waan kala tagnay, hadda nin kale carab aan guursaday 20 sano la noolaa. ninkii hadda 2016 kala tagnay. marka hooyo waxaan ahay ana muddo fara badan guriga joogtay, iskuul ma aadin because odagayga muu jeclayn inaan iskuul iyo maartayo aan baxo guriga ka tago. marka hooyo waxaan ahaa ilmaheeda korisa. alxamdulilah aadaan ugu faraxsanaa runtii inaan noqdo qof adeecda ninkeeda oo gurigeeda joogta oo ninkeeda ka dambeysa, risqana soo galaya hadduu rababa ha yaraado. alxamdulilah nolol aad u qurux badan aan ku noolay muddo fiican. marka wixii dhacayna aniga ma ka xumi. waxa waa ilaahay subxaana watacaala qofka markuu wax maartay macnaha ku dhacayaan wax kale loo diyaarinaya. marka ilaahay wuxuu ii diyaarinayo ilaahay unba og. ani kulli waxaan ku duceystaa ilaahayow ha idilin anoon xaafidad ahayn, diinkaagana aan u shaqayn. marka ani hadda waxaan ku guda jiraa diinkeyga ilaahay ayaan u shaqaynayaa. tanaana ka mid ah arrintan Hope Family Foundation waxaan u furay ama maartay u alifay. alxamdulilah waxay ahayd un caawimaad. Hope waa rajadii, Hope Family waa familkii, iyo foundationkii waa hoostii. marka waxa waaye anaga waxaan rabnaa inaan kasoo dhisno meesha hoose, inaan igala caawisiinaan rabaa. waxa kaliya oo igu caawin kartiin ani ma ku dhahayo haddaad waxba awood wax isii. waxaan ku rabaa subscribe-ka inaa iigu dadaashid, channelka inaad sii share garaysid, sida marka ugu horeysa lacagta noo soo dhacdaba aan dadka u tuso lacagtii waka halkaasay ka baxday.
channelkan 100,000 iyo 200 300 1 milyan gaarsii waay qofka heesaha dhegaysatiin meelaha kale ku shumuugtiin u sii dir dhalinyarta kale meelaha ku jirta ana qofna ma baryaayo been ku sheegayo qof heesaayo ma baryaayo qof iska nacnaclaynayo ma baryaayo please subscribe ka saar maxay ahayto janalka gambaleel ka taabo sii share garee dadka kale ugu ani ma jecel nuhnuhda iyo nahnahda haddaan anigu kusoo gudbiyo wax yar oo kheyr leh alxamdulilah marka aniga waxaan kaa baryayaa saaka waxaan kaa baryayaa inaan dadka isla caawino anfacu linnaasi aniga waxaan u xanaaqsanaa wax yar waxaan u xanaaqsanaa dowladda ani dowladda ma jecli inaan ku xanaaqo maxaa yeelay runtii waxaan dareemaa nuur ilaahay noo soo saaray inuu yahay nuurkaasna ilaahay nagama demiyo taasaan dareemaa qalbigayga maxaa yeelay ani hadda 30 sano wadankii ma batiginba ka badan ani 89 iigu dambeysay marka wax aan dembi ku galaya haddaan wax ka sheego ani inside muqdisho ma tegin magaalooyin kale la kuwa tegay 2 mar aan Soomaaliya tego waqtiyo kala duwan ah marka laakiin waxaan dareemaa nuur laakiin waxa noogu muhiimsanaa waa Burundi inaan ka fiirino madaxdeena dowladeena inay fiiriso hoos dadkeena iyo dadka dhaqaalaha leh iyo dadkii maartay madaxdii hore iyo kulli inay fiiriyaan dadkeena hoose in la isla caawiyo agoonta in la isla caawiyo dadka barakacayaasha in la isla caawiyo in loo dejiyo barnaamijyo dadka in maartay la bilaabo halaabay sidii loogu bilaabay iskax u qabsa maxaa lagu dhahaa si loogu bilaabay isxilqaan in lagu bilaabay oo loo bilaabo dadkaas barakacayaasha meel gooni loo dhiso maarta aniga waxa fikirka aan ku jiro waxa waaye barakacayaasha gurigooda iyo beertooda in loo sameeyo dowladana waa ka codsanaa cajiradana waxaan jeclahay saddexdaasba inaa gaarsiisin ilaa maxay ahayd villa Soomaaliya iyo dadka maartay madaxdeeni hore kulli inaa gaarsiisiin dadka barakacayaasha dadka dhibaataysan dadka maartay dhaawacmay dadka maxay ahayd hadda ilmo yaraan soo gelin doonaa oo ayaa hore soo diray inkastoo xoogaa loo oriyay laakiin weli way u baahan tahay inay dhammaystirantii ma umaynayo 35,000 u baahan tahay oo turki in lagu geeyo maalin dhawid gabar yar oo joogta Kenya ayaa ilaahay amarkiisa ka heshay hooyadaas marta Facebook gabadhii yarayda insha Allah waa laga soo duubay Muqdisho gabadhii yar hadda waa la sheegay lacag xoogaa loo oriyay laakiin weli shii moor aniga ma taqaana waxa halkan u soo galay hadaayo waxaan ka hadlahay xagga dumarka uu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dumarka madax ma noqon karaan laakiin waan xanaaqsanahay maxaa yeelay hadda 30 sano ama 60 sano ugu dambeysay Soomaaliya waxa xukumo waa rag maxay ahayd ragay ahaayeen ana ma kaga xumin rag wayna dhaleen waa walaalehen waa wiilasheeni waa iyaga mas'uuliyadda ilaahay noo saaray waa qawaam iyaga qawaamka loo dhibay laakiin aniga waxaan rabaa hadda la joogo inkastoo wadankii ay maartay dagaalo ka socdaan maartay dagaaladaasna dagaalo maxay ahayd ay tahay in la dhaho macnaha ay dhahaan anaga kitaabka ilaahay ayaan ku xukumaynaa laakiin haddana dadkii aan bombaynaysa taasna ma soconayso dhibaatadaasna ma soconayso dadkii inaad dhahdo kitaabka ilaahay dadka bar taasna iyagan kula dardaarmaya maxay ahayd dhalinyarteena kula dardaarmaya oo dhahay kitaabka ilaahay inuu soo noqdo waa sax kitaabka ilaahay waa in adduunka lagu maamulo laakiin hanaga bombaynina dadka iyo maartay wadanka ha qarxinina dhaaf guryaheena ha noo dhisnaadin dhaaf dadkeena jidka ku dilina taasna iyaga message soo diray 2 daqiiqo bas ay dhiman waxaan rabaa 2 daqiiqo inaan uga faa'iideysto please ajaladan sii gudbi igalana caawi inaan caawino dadka ugu dambeyn muhiimadda maxaa waaye dhaqaalaha waxbuu taraa dhaqaalaha qofka walaalkaaga ku caawin hadda wiil yar hadda waxa murugta iga keenay hadda anigoo wallaahi alcadiim weli afkayga koob shaah gelin baa waxaan arkay wiil caloosh ka soo jeeda saxariisi banaanka taalo haddaana soo gelinaya taleefankiisana haddaan wici doona marka aniga muku dhahay dhaqaale buurinaysa inta markii aan iga soo go'do haddaan caawiyo hal qof ama 2 qof alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaaha ma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nafna ilaahay kuma ma saarno culays ma faade hadda waxa ii sii hal minid oo kala ii haray marka waxaan in kula dardaarmaya ina igala qayb qaadataan way sii damaysaa ina igala qayb qaadataan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk